madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa kormeeray askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo tababar leeli sargaal ah ku qaadanaya dugsiga tababarka military Kambaba ee dalka Uganda. Saraakiisha uu tababarka ugu socdo xirada Kambaba ee dalka Uganda ayaa tiradoodu ku dhowdahay 100 askari, waxaana la filayaa in ay bartamaha sanadkan dib ugu soo laabtaan dalka si ay ugu qayb qaataan dhismaha iyo tababarada ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Madaxweynaha oo dhiirigelin u sameeyay saraakiishan ayaa sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya ay ahmiyad weyn siinayso sidii saraakiishan iyo kuwa la midka ah ee tababarada ku maqan ay ugu qayb qaadan lahaayeen dagaalka dalka looga sifeynayo dagaalyahanada Al-Shabaab. sidoo kale saraakiisha xirada ku sugan ayaa madaxweynaha ugu mahadceliyay mudnaanta uu siiyay inuu arko tababarada ay qaadanayaan, waxayna sheegeen in ay aad ugu faraxsan yihiin booqashada madaxweynaha. ugu dambeyntii madaxweynaha iyo wafdiga la socday ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Kampala, waxaana isla maanta la filayaa inuu khudbad xiritaan uu ka jeediyo shir diiradda lagu saarayo arrimaha nabadgelyada isdhexgalka kobaca dhaqaalaha qaaradda Afrika. Ismaan Aweys Baxar, TV-ga caalamiga Janawkey, Muqdisho.